Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo maqal cusub. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay daawashadaada. Adigaan hadda daawanaya ayaan ku mahad celinaya. Fadlan muuqaalka like saar si uu markaa dad fara badan u sii gaadho. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Muuqaalka waxa uu ku saabsan yahay oo uga hadlaynaa online background eraser ama inaad sawirka si online ahaan uga reebto backgroundka. Awal hore hadii aad isticmaali jirtay Photoshop ama application kale oo markaa mobilka lagu shubto oo backgroundka lagaga reebo. Hadda waxaad isticmaali doontaa website-ka waxa uu ka caawinayaa inaad sawirkaaga ku upload gareyso ama sawirkaaga inta website-ka geliso oo si automatically markaa backgroundka kaga reebo dabeedna sawirkaaga oo PNG ama background aan lahayn aad la soo noqoto ama la soo degto ayaan muuqaalkan kugu sharaxayaa aan guda galno. Marka ugu horeysa browserka kugu jira soo furan doontaa hadda Chrome baan gelinaa Chrome ama Google Chrome ayaan markaa isticmaalanaa hadda browserka kugu jira adigu ayaad isticmaali kartaa. Halkan marka aad search barka timaado halkan waxa aad ku qori doontaa markaa remove.bg baad ku qori doontaa halkan remove intaas aad ku qori doontaa remove.bg remove.bg baad ku qori doontaa dabeedna go baad odhan doontaa ama search intaad ku dulfan doontaa background markaa ama website-ku noocan markaa kugu soo bixi doona. kaliya waxa uu qaabilsan yahay kaliya waxa uu ku shaqeeyaa in uu sawirada backgroundka ka jaro waa remove background weeyaan. Sawirkaaga halkan aad soo gelinaysa si automatically ayuu backgroundka kaga reebaya markaa. Hadda halkan waxaad ku dulfan doontaa markaa ama xaggan aan taabananaa upload image sawirka ayaan markaa xaggan ku upload gareynaysaa. Sidoo kale sawirkaaga marka aad soo gelisid backgroundka ka reebto waxa uu leeyahay backgroundyo caadi ama sawiraan caadi oo meesha ku jira ayuu leeyahay ka aad jeceshaad markaa xagga dambe marsan karta oo duligan karta. Hadda bal sawir baan ku soo upload gareynaya ama sawir baan soo gelinaya si aan backgroundka uga jarno. Halkan upload baad ku dulfanaysaa markaa. Upload markaa ku dulfato sawirka markaa kugu jira ama sawirka aad rabto inaad backgroundka ka jarto ayaad markaa soo qaban doontaa. Hadda kana ku dulfan doonaa bal kan markaa saa ku dulfato open baan odhanayaa hadda wuxuu barbaan garanaya oo diyaarinaya markaa backgroundka jaristii xogabad yar sugi doonta markaa inta uu ka reebayo dhinaca dambe. Wadiga arkaya qaabka uu uga jaray markaa xataa waxba markaa backgroundkii kaga mutagin oo sidii uu ahaabo u jaray si qurux badan waliba. xataa hadii markaa in yar kaga tago ama badhow kaga tago halkan edit ay ku qoran tahay baad ku dulfan doontaa. halkan markaa ku dulfato waad ka masixi kartaa wixii kugu hadhay qaybtan waa erase and restore buu leeyahay. Sidoo kale halkan waxaa ku jira backgroundyo kala duwan ayaan ka midaba ku jira sawirro caadi ah ku jira noocii aad jeceshahay baad markaa ka dhigan doontaa adigu markaa aad dooranaysaa. Haddii aad PNG ama bila backgroundka ku rabtana just xaggaas uma taabanaysa sare download buu markaa kuu siinayaa. hadda bal backgroundkan aan ku eegna markaa si uu uga bedelo wadiga arkaya haddii aad baalar xagga dambe ka dhigayso ama shucaad ka dhigayso tana dooran doontaa waxa xagga dambe shucaab ka dhigaya qaabkaas markaa kugu shaqeynaya. haddii aad rabto inaad wax ka masaxdo labadan markaa kaga masixi doontaa markaa uu ka masaxaya ama uu ku soo celinayo waa restore. Save tana qaybtaas saraad ku dulfan doontaa dabeedna download baad odhan doontaa sawirkii ku download gareynaya dabeedna wuxuu ku geliyay markaa device-kaagii halkaas aad markaa ka arki doontaa sawirkii isagoo bila background isagoo background labadaba. hadda background man xagga dambe saarnay si qurux badan buu sawirkii u soo saaray. isagoo PNG background lahayn baad download gareysanaysaa device-kaaga ku geliyay saasaad markaa u isticmaali doontaa wixii markaa aad rabtay. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkaaga like saar tan iyo muuqaalka dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.